بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومركل إيه برنامج كيني جريمة حكومة بورتة عن لباح أي جيستي لبعض يكون يأفر يلا بعتنكي ديسمبر 16 دي مركي لو داري ثلاثة دلكا وبرنامج تحناء وصعون دونا انتي مدعاه ما انت وحان سعد oo aan leexleexad lahayn u sheegaynaa in xukuumaddu ku fashilantay mas'uuliyaddii ay shacabka u qaaday. Fashilkaasi ma aha mid ku kooban hal dhinac. Wuxuu taabanayaa siyaasadda, dhaqaalaha, maamulka iyo ilaalinta dastuurka. Xukuumaddu waxay si joogto ah u weeqday kalsoonidii shacabkaas oo sida ay sheegtaan ku soo doortay 69% nidaamkii dawladnimo, iyada oo marar badan lagu eedeeyay inay jabisay ama ay ka tallaabsatay qodobada dastuurka. waxse ay dheg jalaq u siiyeen aanay jirin. Dastuurku waa heshiiska ugu sarreeya ee shacabka mideeya. waa in aan loo adeegsan dana siyaasadeed ama kooxeed. waxaa kale oo muuqda in xukuumaddu ku guul daraysatay ilaalinta midnimada iyo wadajirka shacabka. haddii ay dadku isku keeni lahayd waxaa sii kordhay kala fogaanshaha iyo kala shakiga bulshada dhexdeeda. tani waxay dhaawacaysaa dareenka muwaadinimo iyo wada noolaanshaha dadka. waa halka la yiraahdo waa la kala shakiyeeye, qofba qofka u dhawaa ayuu ka dhaqaaqayaa. dhanka dhaqaalaha, shacabku waxay maalin walba dareemayaan culays sii kordhaya. sicir barar aan meel u haystaa jirin, shaqo la'aanta iyo hoos u dhaca awoodda wax iibsiga ayaa noqday xaqiiqooyin taabanaya qof kasta. halkii laga soo saari lahaa siyaado wax ku ool ah oo lagu kobcinayo dhaqaalaha, waxaa la arkayaa tallaabooyin sii adkaanaya iyo noloshii dadka oo maalinba maalinta ka dambaysa aad u adkaanaysa. mid ka mid ah arrimaha ugu culus waa cashuur kordhinta. waxaad moodaa intay xukuumaddani joogtay inay ka dhigatayba shaqo cashuurta in lagu kordhiyo dadka, hadday ganacsato tahay iyo hadday shacibka tahayba. taasi oo arxan la'aan iyo naxariis darrada ka muuqata ay sababtay in shalay iyo daraad iyo tii ka horreysay ugu dambeysay la soo saaray barnaamijyo cashuur kordhin ah iyadoo dhaqaaluhu daciif yahay. waxay muujinaysaa in xukuumaddu aanay haba yaraatay dadkeeda u turaynin, aanay tixgelinaynin xaaladaha nololeed ee dadka. waxaa jiri jirtay in dadka aad u daciifka ah ee noloshooda hooseyso la siin jiray raashimo iyo dhaqaale kabid mucaawinooyin ahaa. taa meesha xukuumaddani way ka saartay. waxaa u muuqataa culays dheeraad ah oo lagu saarayo bulshada si caloosha looga gumaysto. sidaa darteed waxaa cad in xukuumaddu u baahan tahay inay si degdeg ah u saxdo khaladaadkeeda. waa xukuumadda hadda ka jirta Somaliland waa inay si buuxda u ixtiraamtaa dastuurkaasi oo loogu codeeyay 97% haa. aan si aaminsanahay in xukuumaddani aanay la jaan qaadinba dastuurka haba yaraatee. xukuumaddan uu garwadeenka ka yahay Master Cirro waa inay dib u dhistaa kalsoonida shacabka. waa hadday rabto inay sii joogto haddii kale waaba lagu kala hayaami doonaaye. midnimada qaranku waxa kaliya ee la ilaalinayay bay ahayd, ee loogu dulqaadanayay khaladaad badan hadday tahay kuwii buurta koray ee caari watay buuraha bariga sanaag tegay. waxa bilihii ugu dambeeyay aad u soo badanaya cabashada dadka ee dhinaca caafimaadka, kaasida oo dad aad u badanna ku dhinteen. waxay dadku ka cawdeen oo aan cidi dheg jalaq u siinin inay jirtay xumadaasi oo aan wax macluumaad oo ka soo baxay wasaaradda caafimaadka iyo meel loo jiheeyay toona jirin. xanuunkaasi dad badan oo qiimo lahaa ku dhinteen. waa qadar ilaahay, hase yeeshee ay ahayd in la ogaado fayraska ama bakteeriyada waxaa keenaya in la helo. fashilka xukuumadda waxaa kaloo ka mid ahaa biyihii magaalada Berbera. taariikhda waa markii ugu horreysay
ee xukuumadda cirra inta ay joogtay magaalada Berbera biyo la'aan ku dhacdo. Berbera waxa lagu majeeran jiray iska kululaatay inay biyo lahayd xilli walba oo loo baahdo, dadkuna aanay kaydsan jirin ay toos qasabadooda ugu socotay uga dhaansan jireen. biyahaas oo qarniyo ka qarniyo ceel duwaar la idhaahdo ka soo dhaadhici jiray, biyo macaan oo aan milix lahayn aad u qiimo badnaa bay ahaayeen. hase yeeshee waxaa loogu bedelay dadkii in inta biyihii laga gooyay si baahi u timaado oo mashaariic loogu soo qaado la yidhi biyihii badda laydiin macaanaynayaa, oo aynu arkaynay miidiyaha ka wada arkaynay wasiirkii biyaha iyo koox kaloo dul taagan baddii oo le waa macaanaynaynaa maba lulate maxay leeftaa kuwii macaanaa ee 200 sannadood jiray ayaa la gooyay oo meelay mareen la laayahay si mashruuc loogu qaato biyogelin ah magaaladii Berbera biyahaba hodanka ka ahayd ayaa la yidhi biyaha baddaanu macaanaynaynaa. taasi waxay ka mid tahay jariimadaha xukuumadda buurta gacan libaax ay dhaqaalo ugu samaynayso dadkeedii. dhaqaaluhu wuxuu ku yimaadaa in la xoogsado, in la tacbo, in laga soo bilaabo meel hoose, in timir la iibiyo, markaa ka bacdi baa la noqdaa qof ganacsade ah oo Ilaahay wax u dhiibay ee kama soo bilaabma cashuur dad laga qaada iyo mashaariic dawladeed ee loogu talagalay dad masaakiin ah. halkay ku dambeeyaan waa la yaqaanaa. dadka ka taajiray ee dhaqaalaha ka sameeyay dawladnimada waxay ku dambeeyaan dawarsi iyo cudurro aan dawo lahayn.